wata samootada ku timid wata ka degaysa maskaalto iska bixinaa u fiiso iska bixiye kadibna quraanu akhriyo sida la sheegayo. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waxaan ku tilmaami karaa lidaaxad waa gabar kaliya u barbar dhigaysa oo u bacbac dhigaysa yani intaasoo boqol oo qof oo rag ah oo weliba ku dhawaaqaya inay doonaan inay dilaan ama ay wax ku sameeyaan oo aad iyo aad u malaynayso dabcan la u jeedo qirada ka muuqata iyo sida ay ugu soo boodayaan ayaa intay mooto ay wadato dhigato barking garaysato ay ku soo leexanaysaa dhinacooday soo aadaysaa markaasay ilaahay magaciisa ku dhawaaqaysaa iyadoo leeyahay Allahu akbar. يعني وجبر هنديات بل سيدي وحود دعين وحن كنا مسترينا بإذن الله تعالى عدن إمت حفيز كان تجينا وكنا مسترينا وتا سمعت ذي كنت إمت وتا ذي كده جيسا وفي سدا وكواسين على سؤال جيسا وكوانا أيقو تربضا آدي أدو تربضا هذا الكيضة إيه وحي كل واقعي سبال هالمر المخرى ميل كان تقينا محل كان عد مالهم فيديو كان عد مالهم وكان عد لك وخيلا ضوضي لواقع هذا وأيضا طبعا سوى سعوته waxay leeyihiin horta andaay horta koob waxay galaysaa u fiirsada meeshii laga mamnuucay xijaabkeeda dartiisa ardaydii dumarka ahaa oo dhan laga mamnuucay islaamka ahaa ay galaysaa wataa way gashay. Allahu akbar cajiib wax kale aan ku tilmaami karo run ahaantii ma lahan oo aan ka ahayn geesisana gabadha ma sha Allah yani waxay u bandhigan tahay gabadhaas aad arkaysaan geeri ma ogtihiin oo inaad maqasheen ama aad ogtihiin badankiina waan rajaynayaa qofka muslimka ah iyo yani maadaama ay lo-da cunin marka lo-da halkaasaan dhigaynaa hindida ula jeedaaye digaaga kalluunka ama layga yani waxay ku sameeyaan caadiyan waa cunaan marka inay dilaan macnaha xoolahaasi iyo qof muslima inay dilaan waxaa u sahlan hindida qof muslim inay dilaan jidka dhexdiisa qof iska socdo oday dabcan videogaasi wax la soo bandhigi kara ma aha oday wiilkiisa yar oo dhalay ayay hal mar intay qabtaan waa sida hadda ogow kaliya muslim weeyaan ayay kow ka siinayaan weliba hadde feer haraanti dhagax iyo ul iyo wixii la midka ah. almuhim gabadhan arrinteeda waxay u bandhigan tahay inay marka kow ka siiyaan ay dilaan laakiin waxaa cajiib ah geesinimaday dhiiranaanta shalay meesha waxa laga soo buriyay laga xirtay videogii hore aan idinku tusay dabcan iskuulkan ma ahayn iskuul kale iskuulada way badan yihiin yani way fidaysaa arrinta horena idinku sheegay arrinta way fidaysaa yani waa gabal dhan oo iskuuladii laga mamnuucay in gabadha muslimadda ay ku tagto dharkeeda xijaabkeeda cajiib yani waxa la yaab le caalamka eeganaya fiirinaya waxna aanan ka dhahayn yani la yaab le marka aan leeyahay waxaan ula jeedaa ayagaan ula jeedaa laakiin anaga lama yaabayno ayaga caadi ahaan soo haddee ma ahan inaan dhahno waa arrin la yaab leh yani ciddii dhahaysay xorriyadda gabadha xuquuqdeeda ayaan u doodaynaa hadda aaway intee joogtaan idin aaway halkeed jirtaan gabdha ma ahan miyaa kuwan mise gabadha in la qaabiyo keliya taa xur ah ma taasaa xorriyadda gabadha ma qaadan karto waxay rabto xijaabkan ma qaadan karto subxaan allah walli caalamka sadaqa rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka alla run ayuu sheegay wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa
iskama unan hadlayn wuxuu ku hadlo waxay ahaayeen xaq iyo waxyi bay ahaayeen allah subxaana wa tacaala ayaa sidaa noogu sheegaya marka gabadhan ayadoo arkaysa hadda uga way dili karaan maxaa yeelay horteeda ay sidaa u sameeyeen kuwan ma ahane kuwo kaloo badanoo hinduus ah waxaynu ku dhawaaqayeen macnaha ha noolaado ilaahyadeena ama ilaahayna raam sidaasay ku dhawaaqayeen ay dhahayeen ay ku celcelinayeen marka way taqaana ayada waa isla ayaga hindi weyaan ayada naftirkeeda kaliya diimahay ku kala duwan yihiin markaasi ayadan waxay ugu jawaabtay ilaah baa weyn ilaah baa weyn ilaah baa weyn macallimiinta ama dad mas-uuliyiin ah meesha jooga ayaa dabcan isku day gabadha inay macnaha ka qabtaan oo ay macnaha iskoolka ma aynan gelin ma dhihi karo iskoolkay geliyeen laakiin ayadaaba soo aadaba ayadoo mooto wadata yaa ii diidi kara camal yani waa ay macnaha ilaan ogow arrinta la yaab kale waxay tahay hindi ay uga duwan tahay meelahan kale ay dhibaatooyinka ka dhacayaan dadkan waa dad weligooda deganaa meesha ku dhashay abka ab hindi ah qoladan sheeganaysa waddanka inay leeyihiin ayaga way u siman yihiin keliya laakiin waa maxay waan kaa badannahay waa arrinta annaga tusaale ahaan matalan soomaali haddaan nahay dadka walaalaheena nala dega oo magacyada kala duwan aan u bixinay waxaa la sheegaa kollay taariikhda 100% ma hayo waad isaxaysaan adinka kollay qaarkiina ka mid ah waa hayaan waan hubaa waxaan maqlay marka qolo ka mid ah qolooyinkan marka la yeesay yani ama magacyada aan u bixinay isku aabbaa la ahaa qolo aabbahooda waxaa sameeyey miya mise familkooda waxaa sameeyey kadibna sidaasaa lagu dayriyey haddii isku aabba la ahaa dabcan isku qabiila la yaha weeyaan haddii ilma adeera la ahaa dabcan isku qabiila la yaha weeyaan marka mentalitiga liitee xun ee jiran ee insaanka hadduu galo sun ka daran weeyaan yani wuxuu kuu saameynayaa sun si ka daran yani ilaan sunta ayaa waxaa lagu yaqaanaa ama ay tahay qofka marka ay dhag ku dhahdo markiiba xiridaha jirka dhiigga ay raacaysaa markiiba buf qofkii waa kaa tusaale matalan mas ayaa qaniinaya qofkan mar alla marka uu qaniino suntii dhiiggii caadiga ahaayee liquidka ahaayee dareeraha ahaye soconayay ay maxay ku samaynaysa inay fariisiso xinjir oo kale intay ka dhigto ayaa qofkii waa kaas hadde waaba suuxaya ma dhaqaaqayo mana dhaqaaqi karo la xawla la quwwata illa billah marka almuhim arrintan waxaa marka ayadana sidaasoo kale lamid ah oo aan shalay naftirkeeda ka hadalnay arrimaha isoo taraaya ee tii shahrukhan iyo wiilkiisa lagu sameeyey maanta marka xilliga videogan aan duubaayo dabcan xilligoo soo gali doono ma aqaan kollay inoo beri soo gala insha allahu tacala rajeynaa haddaan nool nahay waxaa dhacday naag hindiyad ah oo heesa ahayd ayaa dhimatay kadib dhimashadeeda aaskii la aasayey iyo meydkeedoo meesha lasoo dhigay ayaa waxaa soo booqday haddee intaasoo actariyan ama jilaaya ayaa soo booqday waxaa ka mid ah jilaayaashaasi dabcan waa taqaanaa shahrukhan ka mid ah isagana wuu yimid waxaa dhacday xaaskiisa waa hinduus asaga intaasoo dhibaatooyin ayaa maadaama asaga islaam uu yahay magacaasi kore lagu heestaa si walba isu baryeeli karo ama uu markaasi yani inkastoo hadda kahor uu ka hadlay dhibaatada muslimiinta lagu hayo inay tahay arrin qalad ah maxaan ku dhahay iyo wixii lamid ah oo uu ka hadlay taa naftirkeeda dhibaato kale u keentayo almuhim waxaa dhacday aaskii u yimid asagana videogaasi hal mar aan la qaybsado naftirkiisa si aad u aragtaan waxaan ka hadlayo nacam kadib ayaan fasiri doonaa insha allahu tacaala bismi illah codka aan ka xirayaa hal mar xali wax muhiim ah ma ahan cafan waa kana waa asii xaaskiisa marka xaaskiisa sidaanay u baryaysaa ay ugu duceynaysaa iska dheh kollay asal ma ahan mana yani barnaana diin ahaan yani gaal inta u tagto aad usoo duceyso yani waa isberiyeelid tii ugu darneyd oo qofkan samaynaya marka muhiimadeeda waxay tahay marka u fiirso xaaskiisaan asana sidaas ugu duceynayaa marka maskaalto iska bixinaa u fiirso oo iska bixiyay kadibna qur-aan u akhriyay sida la sheegayo faatixa oo kale wixii lamidka ayuu akhriyaa la leeyahay idaacadaha qoraya kadib haddee waa taqaanaa qofka ruqyo tuf ayaa lagu dhahaa soo maahan waa kaa tufitaankaasi balaaya ka raacday maxaa kuu geeya meesha ayuu maanta horta waan hubaa uu taagan yahay intaasoo weerar ilaa ay hadda idaacadaha qaarkiisa waxay sheegayaan in laga yaabo in loo diro maxaan ku dhahaye askar waardiyeys iyo wixii lamidka ah yani in loo dira laga yaabaa maxaa yeelay tufitaankaas waxay dhahan waa kaa sameydkeena u yasay oo ku tufay tuf calayk oo kale yani ayuu dhahay asagana maskiinka yani wuxuu ula jeedaa wixii u akhriyey asagoo ayaga dabcan isu beriyeelaya anna waan u duceeyey oo kale yani ayadan saanay dhehaysay asagana sidaan ugu duceynayay
كلي معناها صح ما أهن لكن waxaan ula jeedaa wixii dhacay unaan kuu soo gudbinayaa marka waxaa weeraray xisbiga talada haya BJP baatiga dad badan oo kamid ah hogaamiyaal kamid ah dad mas'uuliyiin ah bal waxaa weeraray dad jilayaashiisa kamid oo dabcan ay isaga isku group ay ahaayeen iyo caamadii hadda lagu diray markaas ahde maxaa ku geeyay ay u taagan yahay يعني ujeedada ma ahan inuu ku tufaya ma ahan asaga horaaba loo heystaba magacaasa lagu heystay waa tii wiilkiisa kiis loo sameeyay marka waxay tahay ujeedadeeda Allah idin barakeeyo waaqica caalamka ka socda in aan la socono way wanaagsan tahay kow arag waxa dhacaya waxyaalaha noocan oo kale marka aan fiirsano inta badan waxaan hubaa qofka tusaale haddaan ku siiyo aan kuu soo dhaweeyo qofka asagoo familkiisa dilaya garaacaya ilmaha uu garaaca yani halkaas wax ku sameeya wuu xanaaqsay maanta oo dhan bal garaacidiisa uu garaacayana wax alla wixii uu arko ay ku dhufata ama uu ku dhufta wixii la midka macna normal ay la tahay laakiin video arkaya waa qofkii wax garaacaya ugu video ay arkaya oo qof ilma dilaya oo garaacaya bal sidiisa ama sideeda ka yar loo garaacayo ama loo dilayo arkaya ama arkaysa way baraarugaysaa qoftan ama qofka uu baraarugaya wuxuu leeyahay Allah ma fiicna soo u dilay fiiri Allah sida maxay u dilayaan kada naxariisa galaysa yani marka videoyadan waxyaalaha aan u soo bandhigayna waxa kamid ah ila wadaagayna waxa kamid aqliga ku duugana wuxuu yahay ama arinta ama istiraatiijiyadan kale waxay tahay walaalahayga Soomaaliyeed inaan fahanno waxyaalaha annaga aan sameeyno caalamkana dad ayaa diinta sida loogu dhibaaya kaliya magacaas ay haystaan islaamnimada oo fiirso qaar xijaabkooda loo diidan yahay inay ku tagaan iskuulkooda oo ay ku maraan banaankooda adiga inta oo dhan yahay uu ku siiyay laakiin islaamnimadii ma rabtid inaad qaadatid si toos u qaadatid ma rabtid dagaal dil qabyaalad xumaan yeesti dadka hadda aan sheegayno aan yasnay yani Soomaaliya yeesto oo kale bal qisooyinkaasi dadkaasi iyo yani marka aan maqlay ama aan dabcan in badan aan maqlo wallahi waan yaabaa bal mila yaabtaa qof la deyriyay ama saan lagu sameeyay kala war diinta islaamka halkay ka baxday islaamnimadan sheeganayno ilmu adeer la aha ama sidaas ahayd ama waa la habaaray miya wax saas oo kala ah aqli aan shaqaynayn fahan ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka uu siiyay haddana asaga intuu fahankii qabtay duubay tuuray waa sida la'alla ka soo qaad arimaha way dhaceen marka ay dhaceen waxay dhaceen xilli dadka xataa aan dhihi karno marka sida uma hormarsanayna sida wax uma fahansanay tacliimaadka sida uma jirino oo ilaa caalamka maanta hormarsan yahay maanta tacliimaadka ay aad iyo aad meel looga helaya tusaale ahaan xadiis ama wax barasho intaasoo masaafo ama intaasoo sana loo socon jiray ama la raadin jiray ama bilooyin la raadin jiray ayaa maanta ilbiriqsi gurigaada aad ku helaysaa adigoo dhex fadhiya haddii aad doontana buugii ama kitaabkay ku qorneed ayaad saacado ku helaysaa inta lugayso ama baawur raacdo ayaad soo iibsanaysaa cajiib dadkii hore marka ma aynan helin waxa oo dhan annagii marka ilaahayna makaniyay nasiyay inta oo tacliin ah intaasoo yani nimcooyin kala duwan ah siday ku dhacaysaa ilaah baan idinku dharshay siday ku dhacaysaa inaan iska raacno xilli jaahiliya haddaan ku tilmaamo sida waxay yacnihi dadka sameeyey ay u sameeyeen xilligooda sida ahaa sidee qofkan u raacaya labo mucaanaadka iyo dhibaatooyinka muslimiinta ay ku sugan yihiin caalamka markaad aragto maxaad dareentaa ma walwashaa marka aad walwasho ku laabo marka waddankaada siduu yahay bal inta is waraysato isweydiiso isku laabato yani sidee waddankaada u yahay dadkaada sidee yihiin sidee la isula dhaqmaa naxariistii wanaaga sanayd ee islaamka uu nafaray ma taala adiga kow ma leedahay iyo wixii la midka yani qof walba inuu is-xisaabiyo waxyaalaha iyo wax la mid ayaan ka doonin Allah idin barakeeyo intaasaan kusoo koobaya videogan iyo kuwa la midka ah oo wacyigelin guud Soomaalida walaalaheena aan ugu talagalay aan rabo inaan indhaha furno ka kacna fadhiga fahan caalamka waa kaasadada sida loo dhibaateynaa kaliya waa islaam adigna ilaahay islaamkii uu ku siiyay kuma dhaqantid islaamkii uu ku siiyay khiyaanad sameynaysa islaamkii Allah ku siiyay subhanahu wa ta'ala beenaad sheegaysa islaamkii Allah ku siiyay subhanahu wa ta'ala dadka raacaysa xumaanad ku hadlaysa la'anad iyo awaar iyo qashin iyo xumaana afkaada ka soo yani baxaya inta oo dhan islaamka diiday joojiyo tur Allah ku barakeeyo assalamu alaykum ورحمة الله وبركاته.
صديق ليس ينفع يوم بؤس قريب من عدو في القياس وما يبقى الصديق بكل عسر ولا الإخوان إلا للتآسي عمرت الدهر